gabadhaas 4 mar ayaa laga guursaday صاحب أمس gabadhi haddaad maqlaysid waxaan ka codsanayaa weliga qof walaalka ha qiyaamin هل كان أكو كيننا هل كان بدماي channel kana daawanaysan waa Jamal Jacaylo subscribe kana dhankina weeyaan like na haka hilmaamin dhac kusiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أقول سلامي يا ولالكي جمال جعلو وإذا الله يسكسو نقد ونكسن إنباو حوملين عنا في عنتين أنا جنوا في عنا الحمد لله مقو حواي برنامج كينا تحنا هاي كلسون الدرجة هاي قيبتي سجالات يا مرينا ما ترى حمرتنو ولالكي قالي سعدال مقال كلا كوكسبي جنال كان وسب جراب صار بوجو يسودو ما هاي واي ما شاء الله ودو هي جمال جعلو the legend and the YouTuber and everyone هس داوضو boqolkiiba boqol adiga boqolkiiba boqol waxa waaye aad waxa dadka waxay isku yaqaanaan social media mana xal xaafad inuu soo korno maya xaqiiqatan waxa ninkan aniga iyo Jamaal waxa waaye hal meel iskala imaanay waxa waaye anagoo yar oo ciyaal ah oo waliba caruur ah waxa aan garanayno oo ciyaal dugsi ah hal meel kooda noolaan jirnay xaafadan ka soo baxnay aka يا الحاج علماء هل كان كسلامة يا المقدشو يا الحاج علماء هاوي قاي يا الاخوان يا الاخوان مركو حواي مركز لقيت كفته واي سعدالو سؤالي ديار او تاوملينا ما شاء الله ام ريدي برنامج هور سعود واي markii ugu horeysay waa Nairobi ahayd hadda imaaday kadib aan muuqaalku duwaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto wareysigaaga halkee ku dhalato waa ogahay laakiin asxaabtiina ogeysiisaa rabaa halka ku dhalato aniga waxa ku dhashay magaalada Muqdisho ku dhashay gaar ahaan degmada Kaaraan xaafadda Aqwaanka agagaarka Xaaji Culumo iyo Garboole ma sha Allah waxa ku weydiiyaa socdaal fanka yaa kuugu dhaliyay inaad soo gasho fanka waxaan arkay inuu baahan yahay markaas ayaa fanka soo galay fankaas ku baanahay fanka inuu baahan yahay ayaa arkay markoo aan arkay fanka inuu baahan yahay ayaa soo galay cid igu dhalisay fanka in aan galo amba igu dhiirigelisay ma jirto laakiin dad igu rab igu siiyay way jiraan goormee dareentay inaad leedahay heybad talent ee fanka markii aan social media aan ku soo biiray markaas ayaan iska dareemay inaan ahay nin talenteeda oo wax qaban karo macnaha fanka wax badan ka bedeli karo ما شاء الله فنان سومالي ما جرى أكو ضيته هنا أسجع عمل وجرى أفضل بفرد اللي مانو يا واي حس آدم سمتر أي حس آدم سمتر أي سيس هل هيس كمية من أول وقت كرتا حس بدنا كأقانا هل هيس وجع شا وحواي ونينك أكو ضيته أنت بدن مركان xaaladaha kale aan ku jiro oo ama jecel sheeganayo amba maxeelada sinada aan ku jiro ninka ay dhigeysto waa heesta waxa uu jeclahay siisa beledweyne uu jeclahay zoogala baaqolkii anagoo barwaaqi waka meel baad la joogno tumanena beer waxa way another level heesa uu jeclahay kamid yahay ma sha Allah waxa ku weydiinay xiriir jecel ma leedahay hadda أنا حد وقت أنا تاجين حرير جعل مليه وقت أنا تاجين حرير جعل مليه حرير جعل مليه وقت هذا تاجين أوكي جور مسامرت أنا جا جور مسامر يها بقول كي بقول حواي جور كنا وأنا استحق صح ما شاء الله جعل مركلة دهنة جعل مركلة دهنة وحواي وحيابها أو مركي أنا meel lagu sheekeysanayo markii aan istaago hadii aan maqlo waxyaabaha aan dhagteeda dhibay macnaha uu kamid yahay boqolkiiba boqol because ilma adeer waxaan ku joogan Allah noo dhowray alxamdulillah aad waxa waa ninkaas qaas isku naqaanaa xaaladaha hoos waxa ku weydiinayaa socdaalow jaceelka bilaa lacagta ay jaceelka lacagta wato keeba doorbidaysaa aniga la joog waqtigan taagan yahay jacaylka bilaa lacagta iyo jacaylka oo lacag la'aanta والله جعلك العقد دور بدا يعني بين كل شيء جعلك العقد دور بدا جعلك العقد دور بدا جعلك العقد كان العقد دور بدا سؤاله مايا مسدي كرتا بكوز هذا الكاي انت انا كدحجلين جعلك بلا العقد يجعلك العقد لا جعلك العقد يا دورتي مسدي كرنا دمر كلي العقد ما دورتان ورقن العقد وي دورتان ان ها
raggan way doortaan lacag koos maxaa yeelay lacagta waa shay kaliya oo adduunka lagu dhaqan karo qofka hadduusan lacag haysan waxa ma qabsan karo anigana waxaan arkay aanuu lacag haysto wax walba haysto wax walba aad ku haysto wax ani u baahanahay oo aan heli karo ayaan waayay waxaan arkay ayadoo lacagtiida aniga tiida la iga qaadayo qofka la siinaa arkay lacagta laga qofka la siinayo aad marka waxa waaye isha haddii aad baahan tahay wada ka sii darantaaba koos maxaa yeelay haddii aad baahan tahay wax ma haysatid ba waa lagu kor soconaa okay socdaal saa ognahay Nairobi ayaa imaaday kadibna waa tahriib darteed waxaan u gashay South Africa sababta kugu kala tumshii kartaa misalka u socotay aniga ma tahriibin South Africa ma aadin Mozambique waxaan u tagay laxan inaan laxan ku soo diyaariyo laxan oo heesa ku soo diyaariso anoo Nairobi joogo oo hurdaayo waxa ku riyooday anigoo macnaha hees diyaariyayo oo dhul macnaha aad u qurux badan ku diyaarinayo saas darteed waad Mozambique markaas dhulkan aan xisaabada cabir ku sameeyay waxaan ogaaday dhulkaas inuu ku yahay Mozambique aadankaas haddii aan tagane dhibkaas ayaa ku dhacay hadda waxa ay leedahay hees darteed Mozambique u tagay si aan laxan u saaro inaan laxan ku diyaariyo u tagay intaas bisa u tagtay ugu dambeyn xabsiga galay ugu dambeyn nimanka xabsiga gacan bay salaam bay taayay markii ogaaday in aan socdaalta idan waxa qaldameen ku qaldameen aad iyo aad waxa ku weydiiyaa waxay tahay socdaal waa wiil fali ah ila muuqaalka nagu taageeraysiin arjeynina insha Allah marka socdaal waxa kale ku weydiinaya ragga iyo dumarka yaa qiyaano badan ragga iyo dumarka qiyaanada loo isku mid miya dumarkan waa qiyaano badan yihiin raggan waa qiyaano badan yihiin laakiin anigana waxa asxaabtana waa weydiinaya ani hadda fiiriyo ragga iyo dumarka waxa qiyaano badan dumarka qiyaano badan rag iyo dumar la isma dhamo beerta lagu wada jiraa ay maya dadkana fikirkooda ka suganaa insha Allah socdaal waxa ku weydiinaya wiliga ma loo qiyaano qiso jecel xanuun badan ku soo martay amba adiga qof ma qiyaantay wallahi aniga qof ma qiyaamin wiliga Allah qiyaanadan adduunka u nala 100% sax qiso jecelna way igu dhacdaanin wax yar ma lagu taaban kartaa qiso jecel oo waliba aniga markii oo igu kaliftay jecel inaan naco jecel markii aan maqlo oo jecel aan maqlo oo aan murugoodo oo aan macnaha xitaa aan naco meesha aan taaganahay inaan ugu kaliftay inaan ka tago macnaha bas sababtu maxay tahay wax yar ma lagu taaban kartaa qisadan waa qiso aan ilaabi doonin aniga igu dhacday oo socdaal ah waxay ahayd 2016 ka ahayd waxaan jeclaaday gabadhaas oo ah gabar aniga gayaankayga ah oo gabar aan guursan karo anigu markaa waxaan ahaa xoogsata ama xanaalato waxaan deganaa degmada Kaaraan gabadhii waxay deganeed isla degmada Kaaraan wiilka Algeedi sax gabadhaas jacaylkayga way u sheegtay iyadana way iga aqbashay jacaylkii way igu saaqmay waana igu beermay wuxuu ku talaamay aniga jirkayga gabadhii anoo jecel ay waxay sameysay waxay guursatay nin ay guursatay markii la ii sheegay aniga waan sabray waxaan isdhahay jacaylkaagu ku soo laabanaa gabadhii markii ninka ay guursatay aniga kama quusan waan sii jeclaaday waa la joogay muddo markii la joogay ninkii way soo kala tageen markii ay soo kala tageen way soo wacday waxay dhahday ninkii waa soo kala tagnay walaal adigan ku baahana waan ku rabaa shalan waa qaldoomay inaan ku soo laabto baahanahay waayahan dhaay marda ma hawlaaban aniga guursanayo waayay ugu dhahday jacaylkeena sii wadanay habeenada kamid waxa dhacday 3 bil kadib anigoo sugay gabadhii intii cudada kala meesanaysa kadib in aqal tagno anagoo rabo waxa dhacday gurigeeda habeenada kamid inaan imaaday markii aan gurigeeda imaaday waxa arag gurigii oo lagu wada jiro oo dadka dhan ay wada joogaan oo dadka dhan ay ku wada jiraan markaas waxaan dhahay gabar baa guriga dhex joogta markaas waxaan dhahay gurigan waxa ka jira maxaa waaye dadka dhan maxay rabaan صاحب امس markaas walba qiso waa ku dhaxay saaxiib ams markaas gabadhii waxay u dhahday gurigan waxa ka jira waxa waay abay kadibna waxa ka tameysay abu walaal waxa xasuustaa markii ugu xanuunka badneed gabadhii isla markii gurigeeda ay ku tagay laba far ay taagtay waxay u dhahday waxaan far duco iyo far habar ay weelkii isoo bandhigeen aan far duco ayaan doortay nin aan leeyahay diraa maanta waxaan rabaa inaan ninkan raaco waxaan rabaa inaan iska cafiso mar kale adane gabadhi anigoo dayaa ka safray fataaka oo farahan ka qaaday wala guursaday adane gabadhi mar kale aadana la guursaday gabadhaas 4 mar ayaa la guursaday saaxiib ams waxa walba dhaxan saaxiib qof walba dunida jooga ma aragtay dib uu soo maraa saaxiib laakiin wala kala adeeg dib ma la saaxiib halkaan ku keenana inta ka badan ma ams
عادي وجهك الصدق وجهك الصدق marka waxa waaye waa dareemi kartaa qof xanuun soo maro oo dhib badan soo arko hadda waa qisadiisa toos nooga sheekay waa dhilahay laakiin qofka dareenkiisa in lagu ciyaaro ma fiicno marka waa salaamiya muuqaalka intaan ku keenaya insha Allah marka waxa ilaahay si kasta aan noqotay soo jireenka dhaqanka iyo Soomaalnimo dad kaga sareeyna insha Allah socdaal kaalabu marka waxa waaye socdaal waxa leeyahay asxaabta salaamiya insha Allah صاحب عادي waa wada amaarta marka qaar xasuusahna waa la galaa fahant marka caadi waa ninka ragaan u taa saaxiibkay wax walba waxa dhacdo kasta qoraal leedahay marka waxa waa awoodna inaan qisadaas si dhameystiro laakiin saasay taa dareenka inaan ku ciyaaro ma rabo waxa jira su'aalooyin kale aan weydiiyay lahay laakiin su'aalooyinkaas waa ka qalanaya waxa kale weydiinaya halka xabo ugu dambeeyo barnaamijkan qasab waa inaan qof walba la weydiiyo iyo saaxiibkay waxa kale ku weydiinaa dumarka Soomaaliyeed maxaa ku dhiirigelinaysaa maalmahan waa aragtay dabeecadaha social media ka socdo dumarka Soomaaliyeed waxa ku dhiirigelinaa inaysan qof qiyaamin gabadha haddaad maqlaysid waxaan ka codsanayaa wiliga qof walaalka ha qiyaamin qof haddii uu ku jeclaado nasiib ayaa leedahay sababtoo ah qof kale jecel yahay oo qofka doonta ugu respect badan leh waxaa laga yaabaa inay weysid qof adiga ku jeclaado noloshaada qof haddii uu ku jeclaado cimrigaa inta kariman wuxuu ku siinayaa farxad koos maxaa yeelay qofkaas jecel ayuu ku qaaday waa ku baryaa qofna ha qiyaamin qofkii jecel ku siiyo dareen farxad ku siiyo naftaada aad ku aamini kartid qofkaas ka tagin marnaba ya salaam ma sha Allah marka waxa waa sheeg ninkan waa dareemi kartaa qof mar haddii qalbiga laga soo dhaawaco inuu kalsoonida ka dhumaayo oo qof dambana aaminaynin waa dareemi kartaa qof inta la arooso la soo guursado la arooso haddana la guursado inta la soo furo la arooso waa dareemi kartaa waxyaabahaas xanuunka keenayo marka walaalkay socdaal waxaa leenahay sorry waxaa leeyahay barnaamijkan halkan ku ekeysiinaya si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqanka iyo Soomaalnimo dadka ka sareynaa muuqaalka xiga noo balana صاحب إيزا برو إيزا يا صاحب هي برو خلاص كنا حنت